السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنة ونسنة حسي بدن ما أنتم حاولنا vocabulary about people at work. People at work. dadka shaqeeyo shaqooyinka ay kala leeyihiin. Let's see. Then we start. Architect. Architect or architect. It's architect. This is silent. So it's architect. So when I say architect, I mean the person who designs houses. qofka guryaha sawiro ama naqshadeeyo ayaa la yidhahaa architect. So you say architect. Artist. Artist paints and draws. So qofkan waxbuu sawiraa waxna wuu rinjiyaa. So rinji iyo sawiradu isku daraya waxaa la yidhahaa artist. farsamo yaqaan. farsamo yaqaan maaha yani sawir yani farshaxaniste midka wax sawiro. sawirka free hands ka sameeya ama gacmaha sidii caadiga wax ugu sawiro. Then baker waa bakes breads and cakes. waa qofka duba rootiga ama cake waxyaabaha nooca baker. Then banker saves our money. So qofka bangiga jooga ee lacagaha aan u dhiibano noo save gareeyo ama noo haayo ama noo xifdiyo ayaa waxaa la yidhahaa banker. Then let's go to the next. Author writes books. So qof walba oo book qoro ama writer ah waxaa la yidhahaa author. Then auto mechanic waxay ka imanaysaa ereyga automobile. So auto mechanic waa fixes car. waa qofka baabuurta inuu hagaajiyo mechanic ah. Then barber so cuts hair. So the barber cuts hair waa timajare. Barber timajare cuts hair. Bus driver waa darawalka baska kaxeeyo. So drives us to school wuxuu inoo kaxeeyaa iskoolka. So bus driver. Then next carpenter waa ninka faryaamistaha ama faryaamada ee alwaaxyada wax ka sameeyo. So does woodwork wuxuu sameeyaa waxyaabaha alwaaxa laga hagaajiyo sida sariiraha, armaajooyinka, kurasaha, miisaska and all those. Then chef wuxuu qabtaa cunadu kariya. waa ninka cunada kariya. waxaa cooks food. Crossing guard waa qofka ka caawiyo dadka inay ka gudbaan meelaha streetka ama wadooyinka waaweyn ee jaamka ama buuxo dadka yani baabuurta gawaarida zaidku u socdaan. Then dentist waa dhakhtarka ilkaha. So keeps our teeth healthy. wuxuu inaga hagaajiyaa ama inaga taxadira ilkaheena inay noo ahaadaan nadiif. Coach waxa weeyaan tababaraha ciyaaraha. Teach sports wuxuu baraa sportiga. Construction worker waa qofka shaqaalaha ee ka shaqeeyo goobaha constructionka ama dhismaha uu ka socdo. waa builds houses guryaha ayuu dhisaa construction worker. A doctor dhakhtarka muxuu qabtaa? Keeps us healthy. caafimaadkeena ayuu inta badan ilaahay la kaashadaa oo ka taxadira. Then electrician waa korontiste. Does electrical work wuxuu qabtaa shaqooyinka quseeyo korontada. Then farmer waxa weeye beeraley. waa dadka dalagga soo saaro qudaarta, galleyda, wixiiba beer ka soo baxa dhammaan dalagga dadka soo saaro ee warshada isticmaaleen ee dhulka wax ka soo saara la yiraahdaa farmer. They grows food. Firefighter qofkan waa dabdamiye. Fights fire wuxuu la dagaalamaa ama damiyaa dabka. Hairdresser waa gabdhaha ka shaqeeyo saloonka ee madaxa hagaajiyo. Cuts and styles hair madaxa ayay jiraan wayna qaabiyaan. Styles waxa weeye qaabka oo la qaabinaya qaabka gabdhaha ay u rabaan. Librarian waxa weeye qofka ka shaqeeya maktabadda. buugta aad weydiinayso buug hebel u baahan kuu soo saaro hadhow markaad bogtad akhristiimiska uga taxareeyo buugta kala qaabiyo qaanadahoodana ku celi. Scholar a librarian ayaa la yidhaahaa. Then fisherman waa ninka malayga daba ee badda ka soo saaro ayaa la yidhaahaa fisherman. Florist waxaa la yidhahaa qofka ubaxyada gado ama naakaada ama nin ahaado. Sells flowers wuxuu iibiyaa falawarada ama ubaxyada. Lifeguard muxuu qabtaa?
let's swim safely. Let's us swim safely. Let's us swim safely. meelaha biyaha lagu dabaasho baraagaha ama poolka ama xeebta ayuu joogaa inta badan asoo heegan la ah qofkii ama canugii ku dhaca badda ama biyaha ku dhaco ay ka bixi waayo inuu ka badbaadiyo ama uu ku sheego meelaha halistooda ay leedahay. mailman waxaa la yidhaha ninka warqadaha isgaarsiinta qaybiyo. hadda meelaha qaar ayna dowlad ka jirin ama wadamada qaar boostada lama isticmaalo, micnaha warqadaha mailka ayuu deposit gareeyaa, ayuu qof walba xaafadiisa geeyaa. delivers mail. then musician muxuu qabtaa? plays music, wuxuu garaacaa musica. kalkaaliso helps us feel better, waxay naga caawisaa inaan recovery soo sameyno ama aan kasoo kabsana xanuunadeena xilliyada isbitaalka aad joogto. pilot waa pilotka diyaaradda, duuliyaha diyaaradda ee la yidhaha pilot. flies planes, wuxuu duuliyaa diyaaradda. then plumper waa tuubiste, marka wuxuu qabtaa does plumbing works, waxyaabaha tuubada khuseeyo biigelinta wax walbo ayuu naga caawinayaa. then painter waxaa la yidhahaa ama nin ama naag ha ahaado, paints houses, wuxuu rinjeeyaa guryaha ama derbiyada. pharmacist wuxuu qabtaa gives us medicine, waxa uu na siiyaa daawooyin. pharmacistaha qof pharmaciga jooga ee dhakhtarka markuu daawada kuu soo qoro kuu habeynaya waxaaga xilligaad cuni lahayd, waqtiyaad cuni lahayd, meeqa jeer cunaysa kuu habeynaya ayaa la yidhaha pharmacist. policeman keeps us safe. policeman marka waa ninka booliska ah ee bulshada ku dhex jiro, ciidanka ah, dowladda u shaqeeyo, wuxuu qabtaa yani nabadgelyada iyo amniga dadka dhexdooda iyo shariicda dadka u yaala ayuu sugayaa. then principal waa maamulaha iskoolka. runs waa school. then reporter waa qofka wariyaha ah ee wararka soo tabiyo. report news, wuxuu soo tabiyaa wararka. sanitation worker waxaa la yidhahaa ninka qashinka dadka ka qaada ee guryaha ugu yimaado. hadda guryaha naga degan oo kale nimana ku shaqaysta baabuur wato rid soo istaagaya soo garaaca albaab walba shinaca ka qaato, nimanka ayada ayaa la yidhaha sanitation workers, qashinka jawaanka ku jira ayay ka qaadaan. so what they do, picks up the garbage. waxay ka qaadayaan garbage waxaa la yidhaha waxyaabo walba qashin ah ee aan loo baahnayn ee la yidhaha garbage. soldier protect our country, wuxuu difaacayaa waddankeena. marka qof baa wax isdhihi doono policeman iyo soldier maxay ku kala duwan yihiin? policeman waa sharci yaqaan dadka bulshada la dhaqmo, yani sharciyada iyo nidaamka kala dejiya. laakiin soldierga waa difaaca dalka, they protect the country, waa military oo kale. then teacher waa macalinka, bare ayaa la yidhaha teacher. server serves us food. serverga wuxuu naga caawiyaa inuu cunada nagu saafgareeyo ama cunada na siiyo. singer waa sing songs, waa heesaa. waxaa la isdhihi doonaa singer iyo musician maxay kala yihiin? musician waa ninka laxamiistaha ama kabanka muusigada tumo, laakiin singerga waa midka qofka codka soo baahiyo oo asaga ciyaara la yidhaha heesta. veterinarian keeps our pets safe. veterinarian waxaa la yidhahaa ninka xanaanada xoolaha ka shaqeeya. then zookeeper waxaa la yidhahaa ninka ama qofka ka shaqeeyo meelaha xayawaanada lagu xanaaneeyo, sida libaaxa, duurjoogta lasoo qabta lagu xanaaneeyo. he or she takes care of animals, wuxuu ilaaliyaa xayawaanada ama u xanaaneeyaa xayawaanada. okay, waxaan rajaynayaa intaas inoogu ekaan doona cashirkeena caawa, kaas oo ka koobanaa vocabulary hadda aan soo marin macal sawirahooda wato. fadlan haddaad cashirka heshay like saar, siina share garay, sii gaarsii asxaabtaada. haddaad nagu cusubtahay subscribe noo saar si aan hore wada soconno adigana ku dhaafin cashirka aan soo gelino. marka waa sida iyo nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.